بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بهذا warbaahinta Jubba Shabeelle News aad baad u mahadsantiin shaqaalihiina meel walba ay joogaan igu casuumtay barnaamijkan gaarka ah Jubba Shabeelle News shaqaalooda meel walba ay joogaan waan salaamaya milkiilaha weyn ahna gudoomiyaha عبد الملك aad baan u salaamaya meel walba ay joogaan saaxiibaan ku salaamaya mid kale waxaan rabaa shirkan jiraad inaan uga faa'iideysto inaan markaasi bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan deegaanada Hirshabeelle aan markaasi u sheego in markaasi la ii magacaabay agaasimaha waaxda wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waa agaasimaha arrimaha bulshada ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha gaar ahaan waax xilkaas waxa ii magacaabay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Maxamuud Sheekh Cali Salaad oo markaasi nin markaasi inta badan jacayl inuu bulshadiisa wax u qabto aadan ugu faraxsanahay kadib markii uu arkay sida uu sheegay in xilkaas ka soo bixi karo isla markaana meel kala duwan ka soo shaqeeyay gaar ahaan warbaahinta ayaan ku dhawaad sanadii ugu dambeeyay ku jiray 2011 ilaa up to now TV kala duwan iyo sidoo kale warbaahin kala duwan oo local ayaan ka soo shaqeeyay idaacadda City FM ka mid ah idaacad kale oo CNN la dhaho agaasimo ku xigeen ayaan ka soo noqday aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay xilkan weyn la ii magacaabay maanta oo ay markaas taariikhda ku beegneed 10ka bisha 10aad laakiin digreetada waxa ay soo baxday sida warqadda ku taalay bisha 7aad ay soo baxday 3 bil ay wasiirku taalay agtiisa wasiirku aad baan ugu amaanaya howlaha kala duwan ee uu hayo bulshooyinka ku dhaqan deegaanada Hirshabeelle waa wasiir markaasi inta badan jacayl dadkiisa dalkiisa wax u qabto waa inta wasiir jacayl inta badan inuu shaqo siiyo dhalinyarada soo baxaysa ee aqoon-yahanada maadaama dhalinyaro aad u fara badan ay jiraan anigu waxa uu ii magacaabo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada markaasi uu madax u yahay mudane Maxamuud Sheekh Cali Salaad ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka dadkayga diinteeda iyo dalkayga inaan wax u qabto ayaan rajeenayaa insha Allah hadduu Allah uu raali ka noqdo insha Allah waa saacido doona hadduu Allah uu raali ka noqdo dhamaan cid walba dhibana ah hadduu Allah uu waa saacido maadaama titlkaygu yahay agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee bulshadan ay qusayso bulshada gobolka Shabeellaha Dhexe meel walba ay joogaan insha Allah waana booqad doona xitaa waa u kula gali doona xaaladaha dhabta ay ku nool yihiin hadduu Allah uu raali ka noqdo xil culus ayaa la ay magacaabay xilku ma ahan wax markaasi iska sahlan oo xilal laga magacaabay ma ahan xilku waxa loo baahan shaqo xilku ciyaar ma ahan waan soo arkay insha Allah Ilaahay ila garab galo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ka codsanayaa inay ila shaqeeyaan gaar ahaan kuwa deegaanada Hirshabeelle ka soo jeedo maamulka degmada iyo kan gobolka iyo waliba lamaha amniga iyo wasaaradaha kala duwan noocyadooda kala duwan waxaan ka codsanayaa in ay si weyn ay la shaqeeyaan maadaama nin daayar aan ahay siyaasaddan ku cusub waa markii ugu horeysay siyaasadda aan markaas xil aan ka qabto marka laga reebo social media oo kale shaqo wacan hawl wacan ayaan markaas idin rajeynaa insha Allah wada shaqeyn wacanna waa idin ka rajeynaya hadduu Allah uu raali ka noqdo insha Allah talaabada aan qaadi doono ayaa waxay noqon doontaa dhanka arrimaha bulshada maadaama arrimaha bulshada la ay magacaabay aan qaabilsanahay insha Allah hay'ado fara badan jira gobolka ka diiwaan gashan qaarkood waxa jiro iyagoo aan sanadan ruqsi ama ka haysanin shaqo
in ay iska shaqeystaan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha timid hadda dawlad baan yeelanay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha talaabada ugu horeyso ay qaadi doonto hadduu Allah awood raali ka noqdo ayaa waxa ay noqon doontaa in shaqaalaha meel walba ay joogaan oo Hirshabelle ay mideyso waa maasantiin bahda warbaahinta Juba Shabelle News